aad iyo aad waa mahadsantihiin bahda saxaafadda Soomaaliyeed runtii maantay waxaan joognaa xarunta dawladda hoose ee Muqdisho garbahayga waxaa taagan dalxiisayaal ka yimid dalka Malaysia oo runtii ay maantay ay halkan u yimaaday inay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ay ku qaataan waqti aad u qurux badan oo dalxiis arrintaas oo dadaal badan ay dawladda hoose iyo waliba wasaaradda dalxiiska iyo warfaafinta ay ugu jireen waqti dheerba inay dalka wax badan ka suurtageliyaan si dalxiisayaal badan ay u yimaadaan hadaan nahay maamulka gobolka Banaadir runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in maanta ay noo yimaadaan dalxiisayaal ka yimid waddanka Malaysia halkan aan ku soo dhaweeyno ilaa iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariiso ayaa soo dhaweyn u sameeyay oo halkan aqalka magaalada Muqdisho ee dawladda hoose Xamar ku qaabilay arrintaasna waxay tusaysaa sida ay dawladda hoose uga go'an tahay ahmiyad inay siiso in magaaladan ay yimaadaan dalxiisayaal caalami ah sidoo kalena ay ka mid noqoto Muqdisho goobaha dalxiiska dunida ay u soo damaashaa tagaan waqtigooda quruxda badan ee dalxiisna ay ku qaataan historically caasimadooda ogtihiin waxay leedahay taariikh aad u mug weyn oo aad iyo aad runtii dunida ay xiiso gaar ay ugu qabaan that's why waana midda sababtay inay halkan ay yimaadaan dalxiisayaashan iyo kuwa kale oo ka badan oo dhawaan iyagana waddanka soo gaari doono aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa given the opportunity to visit your country. It is a beautiful country. Your country is well located. You are facing the Indian Ocean and you have a beautiful port and beautiful country. So hopefully that many tourism will come here. When we first came here, we were under the impression the country is not that really security-wise is not safe. But I think it's not true. When we came here, we see actually the security is well taken care. So we hope that many other tourists will come and visit your country. And I am so very proud that we have met a lot of your Somalian who have studied in Malaysia and they have graduated in a respective field and they are holding a very good job in this in your country. Hopefully these people can promote and many more Malaysians will come here and visit your country in the future. So again, thank you very much for the hospitality that you have given us, that we have the opportunity to meet your mayor today. Then I hope that our relationship, the Malaysian-Somalian relationship is going to prosper in the future. Thank you very much. Thank you.